بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا ولاله قالي ماشا جوجتان بسوء دواد الله إذن حفظه أنا وعافي ما قمنا ولاله قالي إذن كنو حيدين رجاء سيدوك هالي يعني اللي لو بسبسكرايب وصارتان انتي هورا إيغو صارتي انتي إيغو عصب أن هورا إيغو صاري بليس وحكا عصنا إنا إي صارتيد قنبلال كتابتيد لايك تفير كنو فتيد aad baa caawinaadiina iyo wanaagii ugu mahadcelinaya walaalahay qaali maanta alaaba idin wadaa insha Allah biidnillaahi kariim anaga caafimaadka qofka bani aadamka caafimaadkiisa gudaha iyo kan korka waa muhiim marmarka qaarkood waxyaalaha korka aad cabto korkaaga ka soo baxaan korkaaga qurxiyaan korkaaga nuuriyaan ya marka wax la ismariyo kaliya ma aha waxa vitamin leh oo korka macdanta u baahnaa gelinaya oo energy ku gelinaya oo vitaminada dhan oo korka u baahan yahay ka kooban oo potassium ku jiro oo bir ku jirto oo wax ka maqan ma jiraan waa laba shay oo ay tusayaan maanta labada shay gabdhaha uurka la cabi karaan waxa ku jira lafaha kaaga daran soo lafaha uu fiican yahay lafaha u dhiso ilmaha uurka ku jira oo lafihiisa u dhiso folic acid ku jira marka lama soo koobi karo cabitanka ay tusay faa'iido leeyahay marka gudaha ka qorxoonaatidna korkana waa ka qorxoonaanaysa korkana waa ka dhalaanaysa qof caafimaad qaba oo ekaanaysa mi fahmaysiin walaalahay qaali marka wax la isku xaqaayo korka kaliya muhiim ma aha waxa cabaysid oo aad korkaaga iyo xubnahaaga iyo jirkaaga oo ku shaqeeyana waa wax muhiim ah anigu waxaan hubin waxaan idinka soo fiirinin waxaan anigu aan isticmaalin naftayda weegaan dhan waxa hadda idin tusaayo aan isticmaalaya weegaan dhan taas aan isticmaalaya wax kale ma isticmaalayo waxyaalahi badan weegba waxba la tijaabiya weegba waxba la isticmaala weegba waxba la tijaabiya marka weega waxaan tijaabinaa u daynaya labadan shay idin tusaayo iyo cabitaankooda la yaqaan حب يحسب ودعاني حرارك اي هاي dad badan baa arkin Allah والله dad badan baa arkin dadka halaskayso tuso marka walaalahay qaali oo idin kaftamaya walaashin fahima iyo kaftan marka waxa horta intaan idin tusin waxaan la hadlayaa maanta wiilash baan wiilal baa ila soo hadla wiilal baa WhatsApp-ka ila soo hadla wiilal baa isku daya inay aniga xiriir ila yeeshaan ama waxyaalo noocaas ah marka waxa waa wiilashaan la hadlaaya waxa waaye qofka bani aadanka sidiisaba nin wala naag qofka bani aadanka marba noloshiisu xaalad bay ku jirtaa marba xaalad buu ku sugan yahay marba mabda gooniyo ku sugan yahay marka xaaladda aniga noloshayda maanta horta waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin interestigiina aad baa u mahadsantihiin ana qof adab daran maahi qof ruud ama ahi laakiin qof wiilasha nimanka nacib maahi yani wiil waa dhalay aabba fiican baa isoo dhalay allah u naxariisto qabriga allah u waasiyo wiilasha walaalahay niman laandheerayaal oo shaqaysto waaye oo fiican marka anu nimanka minacbi laakiin situationka aan ku jiro iyo xaaladayda aan ii saamaxaynin inaan qofku ugu isbadbadala hadba xaaladiisu ay tahay waxa uu ku sugan yahay jawgiisa saameeya marka walaalahay qaali ma aha inaa idinka idinahay ma aha inaan niman raga ahayn ma aha laakiin wax fahimo siciid maanta xaaladeeda fikrad kale iyo howlo kale iyo nolol kale iyo dadaal kale aan maskaxdeeda ku jira ma fahanteen nin iyo waxaas waa ka xirmatay si dabiiciyan uga xirmatay ana xitaa ma xirin si dabiiciya qofka bani aadanka uga xirmataa ya marka fahimo ay soo jeesato qof nin ah u soo jeesato oo maskaxdeeda iyo u soo jeesato shukaansi waxay qaadanaysaa waxaan la arag wala maqal ma haysan ya waxaan la arag wala maqal maxamed iisheeg sayid maxamed cabdulla xasan oo faras cad wato seef wata ama la helaa ya ama axmed gure ama la helaa ya
siyaad barre amaa la helaa allah yarxama الله يرحمه كل قط يا سياد بر سوماليا هنولات سوماليا هنولات أما الهلا يا مركو حسد يريسك وقالي يا حبيبتي ومصعنا waxay uma socdo maaha aad ba u mahadsantihiin marka intaasaan wiilashu u sheegay walaalahay aad ba u mahadsantihiin interestigiinana marka waxaan idin tusaaya maanta waxay tahay ay idin soo noqdeen geedkan beetroot waxa lagu dhahaa af Soomaali ma aqaan beetroot caadi maaha nafaqada korka uu leeyahay ay dadka dhiigga ku yar yahay dhiigga gaduudan dadka uu ku yar yahay wax walba korkaagu u waa geedka caadi ma aha ani hadda ka hor ma isticmaalin laakiin hadda caadi u bilaabaya oo caadi u isticmaalaya isticmaalkiisa mineral kasta iyo vitamin walba korka u baahan yahay kan ku jira marka aad korkaaga wuxuu u rabay u helana wajigaaga laga arkaya walaalahay qaali waa beetroot waxa Soomaali lagu dhahaa ma aqaan qofkii yaqaana ay soo sheego waxa kale oo maanta ay tusaaya geedkan aad ba ugu xumahay af Soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaan kale ay dhahaan KALE kale allaha Soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaan ya ma soo carfaayo waa ansalaato maaha يعني سيدا تاسو سميسن yahay تاسو سميسن yahay عادي ما aha waxa ka samaysanaysa smoothie aka samaysanaysa caadi ma aha energy ga helaysi korkaagu qurxinayo maskaxda cudurrada ka ilaalinayo lafaha uu ku dhisaayo korkaaga sunta uu ka saarayo waxa soo dhan markii gudaha ay ka samaysmaan wajigaaga iyo caafimaadkaaga iyo energy-gaaga iyo wax walba way kordhayaan marka kale allaha KALE waxa Soomaali lagu dhahaa ma aqaan saasuu egyahay waa qaali mi fahamteen saasuu egyahay marka wuu yaalaa dabcan wadamada xitaa waxa laga yaabaa Carabaha inuu yaalo qasab wuu yaalaa Carabaha Afrikaanta ka Soomaali ma aqaan inuu yaalo wadamadan kale oo Yurubta iyo North America qasab uu yaalaa kale alla KALE marka walaalahay ma ka sameysanaynaa smoothie ka sameysanaynaa ya smoothie ka sameysanaynaa hayreeriska iska goynaynaa smoothie ka sameysanaynaa waxa wax walba oo cudurrada ka ilaalinayo oo xasuus darrada ka ilaalinayo oo ka ilaalinaya maxaa la dhahaa waxa korkaaga wixii korka u baahan animooda shiidanayo wax yara ka shiidanayo hadda cabo inta halkaas iska celinaya marka walaalahay macaan wixii aad nafaqada aad ka helaysaa bariis iyo baasto oo Soomaali cunto waxba ka helaysaan أنا أقول دقي أنا وحيانا دقي هل كان كشغلي أنا جدي شيء ليسي يجدا I hope إنه يجدا كسر كشغلي أنا كان كل جيت مو ذبحيناي خافا كسميناي marka goysaasu egtahay beetroot waa taqaanaan beetroot marka walaalahay qaali waxa waaye korka wax la iska marinayo waa muhiim wixii oo nafaqada aad ka helayso korkaaga u baahnaa min nafaqadu ay kugu yartahay korkaaga ku yartahay waa dhibaato waaye mi fahanteen marka walaalahay waxa waaye kaalkii iyo beetrootkii oo isku jajaray oo geedii shiidaysay intaan dhaqay aan ku magaciisiyay ku riday waxa soo ku darsanaysa haddaan rabto waa optional haddaad rabto waxaa ku darsanaysaa baraf haddaad rabtana waa iska daynaysaa marka aniga xabad barafaan ku daraaya walaalahay qaali hal bakeero biyo ahaan ku daraaya intaasoo kale inuu inta ay ku tahay inta ay joogto biyo la eg marka walaalahay qaali waxaa waaye waxa fitamiinada ku jira waa muhiim inaad cabtaan oo inaad samaysataan si aad korkiina wuxuu u baahnaa u helo insha Allah biidhnillaahi kariim
noo shiidmay waa kaas waa diyaar cabitaankaasaa samaysanaysaa ya waxna marka halkaasuu ku yaala waa kaas waa keelkii iyo maxaa la dhahaa iyo waxaa waaye iyo maxaa la dhahaa beetrootki waa kuu diyaar ya bismillah beetrootkan xoogaa macaan uu leeyahay laakiin haddaad rabto aad u baahan tahay malabka oo orgaaniga ah hal macalqad uga darsanaysaa walaalada qaar maxay kaa jeceshihiin waa idin aqaanaa maxaan kaa jeceshihiin waa kaas bismillah عادي معها عادي معها هلا سميستو ولا هي قالي واكاس هلا سميستو نفق وحول بقو معدنه فيتامين مينرال وحول وكرك وباهيه بد هليسا عافي cudurro badan buu ka ilaalinaya maskaxdu cudurro badan kaaga ilaalinaya xasuustaada ku waxeenaya marka aad macdantii aad rabtay korkaaga u helana korka wajigaaga ka soo baxaysa iyo enerjigaaga iyo hawsha aad qabsanayso darbi ka boodooya noqonaysa ya marka waxaan rabaa inaad darbi ka boodoo noqotaan talaabada qaadaan la idin soo qaban waaye insha Allah biidnillaahi kariim maanta intaas ayaan tusaayay is arag dambe xiiso leh barnaamijka la ii share gareeyay please kulligii qofka hore subscribe igu saarna ii saaro ku ii saarana ka ii saari doonana kii hore gambalaalka u taabtana ilaahay dambigeena ha dhaafo aad baa idin salaam walaalahay assalaamu calaykum